madaxweyne deni habeen dhow soo ma qudbeen soo qudbad qiira leh oo xanuun badan oo wuxuu mataqaanaa dhibsanaa iyo wuxuu ka shaki qabo iyo wuxuu diidan yahay soo ma sheegin waay qudbadaas ka waran sad aragtay hadda qudbadaas adna xogogaal fiiri contentiga waxa contentiga ku jira aniga waxa iiga muhiimsan soo bandhigidda qofka inuu wuxuu ku dhaclay wixii jira oo jira iyo wuxuu asagu iska dhaadhiciyo waxay doonaan baha ahaadaan wixii damiirkiisa ku jira inuu banaanka la soo istaagaho dawa raadintay ka mid tahay qof aamusan oo meel yuura waxba laga soo ma hal ma wado haddaan ku iraa war maxuu ahay ayaan low waxaas inaad idishaan ka cabsan oo inaad isumaysaan ka cabsan oo kuuma imaan karo oo kuuma soo hoyo karo oo waxal bilowgis inay run tahay inay been tahay maba aha muhiim waxaa muhiima inay intaas igu jirto soo maa inay iga saartan adaa lagaa rabaa waay inaad iga saarto adaa lagaa rabaa waay nuxurka marka madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu markuu dhegaysto inuu yira war Siciid bismillaahi raxmaani war ma intaasaa kugu jirta haa war bal ii imaaw talada adiga iyo hebel soo noo taal haa inta taladu noo socoto waa lagu sumeeyna soo maaha koobka shaaha ka kala adiga ku hal tarmuusan ka wada cabayna inta soo fadhiiso waa lagu dila soo maaha hadii lagu dila anaa ku dilaa qolka igu soo dhigan dego soo deg waay Siciid muxuu dhahaa markaas wuxuu dhahaa aariyada ka baxday wixii ku jiro dhan daweey intaas ku filan dawo waa intaasba waay dawo waa intaas waay meesha aan ku leeyahay yani cabsi u jirto waxa waaye hadda shirkan waa la iskugu yimid waxa cabsi laga qabaa Soomaaliya jidkay ku socoto jid sax inuusan ahayn waxa cabsi laga qabaa wixii burburiyay inaan iska hilmaanay waxa cabsi laga qabaa wixii daawo ahaa inaan diidnay maxaa daawo ahaa wada hadal by the way siyaad bare markuu maxuu ahay dhintay ama xukunka ka tegay raggii gadaashiisa ka dambeeyo jabhadaha oo dagaalamaya rag badan isku day inay asagiyo kala noqdaan oo ciidamo raadsaday oo is abaabulay oo warlordski waa u shaqeey ways maahno therefore awood ma shaqeynayso zamanka la joogo dictatoriyad ma shaqeynaysaa rag ma shaqeynayso raga anaa ku sheegaa raga waxay isku dayeen taydaa soconayso Abdullahi Yusuf muxuu ahay Maxamed Dheere ninka la yiraahdo Morgan Maxamed Nuur Aliyow raggii oo jabhadaha ahay toodaa soconaysay waa socoweysay aan walaalo waay askari muxuu aad garanayso oo taqaan oo askartaada iyo tayda iyo tiis oo la isku daray shaqeynayso moogiye askar aan amad adigu leedahay ama aanan garanayno madaxa u duuban yahay shaqeynayso horta by the way waay marka warwarka aad qabto marka warwarkan qabo waxa waaye haddii shirkaanu baaba'o hadda shirkan hadduu baaba'o oo la isku imaan waayo maya ama la isku imaado wax ka soo bixi waaya waay deni wuxuu ku noqonaa horta rajada aad ka qabto inuu dhaco maxay leegtahay in la isku yimaado la wada hadlo aniga waxaan qabaa shirkan haddii akhrinta la akhrinayo la bedeli waayo waxba ka soo bixi maayaan akhrinta xukuna la isku haystaa iyo doorasha la isku haystaa iyo ergooyina la isku haystaa waa ka weynta arrintu waa maxay arrin wax la isku haysto waxa la isku haystaa war jidkeen qaadayna dawladda aan rabnaa horta say u taal masiirkeena waxa xagee waay saan rabnaa in isku xukumo mididaanaan haaya daabkeed baadaa qabanaa mas anaa qabanaa haddaad adigu hayso waa igu dile haddaan anigu qabtana waa igu dile maxaa doorashada laga hadlaa maxay tahay masiirkaba laga heshiin masiirka ma ka heshii karnaa maxay kula tahay marka aniga marka waxaan qabaa haddii marka horta qatartan aan kuu sheego Siciid waa noqday
puntland uu tegay wuxuu yidhi nimanyahow niyad wanaagaan xamar ku tegay waadna la socotiin faa'iidana kama keenin ama dadku maalin walba halkaasaa lagala socdaa waaba ujeedaanba axmed madoobe waa noqday wuxuu yidhi 15 maalmoodaan joogay muxuu ahay nairobi meesha la yidhaha xamar waxay la hadlay male markii la isku yimidna wax kaloo faa'iida nimanyahow taladeena bal meel hanoo puntland waa leedahay anaaba haddaan kuu sheega waa sababta aan kaaga soo taariikheeyo waaya xasan abshir iyo puntland inteeda yartaa inaysan ka kala duminaa wax walba uga muhiimsan haddii xamar sheekadeeda u begi weyso cala alaqal ugu yaraan waxay leedahay albaabka noo soo laaba intay dabayshu dhinac dabayl xunaa socotee inta dabayshu dhinaca naga marayso albaabka noo xira markay dabayshuna dhaafto kadib aariyo fiican noo soo galaysa noo fura haddii kale inta dhirif la tagay waxay dhahay waaba goosan indhaha in la furaa raba indhaha in la furo aa la rabaa maxaa ku kalifaya waxaa ku kalifaya soo anigu ma kaaga sheekayn mar hore soo wixii hirshabeelle igu qabsaday soo kaagama sheekayn aniga may dowladdu siciid deni iga jeceshahay igama jeclo waa oon uga dhowahayo meel shaqfusheedan ku jiraa meelay iga hagashuumi karto iga soo gaartaan joogaa dad garab ah oo iga difaacana ma haysta le waa ma ogiye ma siciid deniyo joohor joogay dhaafi lahayd dowladdu miyay kula tahay inay dhaafi lahayd haddii marka uu ku noqdo puntland hadduu ku noqdo meeqay qaadanaya inuu mar labaad xamar ku soo noqdo adigaan ku weydiina waa adagtahay soo ma waa adagtahay waxaasoo shaki ah fiiri madaxweynihii wadanka waaye asagu ma ka sabray garowe iyo puntland ma ka sabray weligiis inuu taga ma rabay miya waa su-aal fiican laakiin maxaa keeni kara kalsooni darada intaan la eg iyo in haddii la leeyahay aan ku heshiino masiirkeenna waxaad rabta damacaaga xagga dhig kaygana aan xagga dhigo ee aan masiirkeenna ka heshiino haddii la leeyahay yay dhibaato ku tahay waxay dhibaato ku tahay masiirkan raba iyo masiirkaad rabto hadduu kala duwan yahay ma isla keenayno labada masiiroo la kala rabo banay fasir anigay adiga gaariyaa dhexdeenna yaal gaarigaan balcada u jeedaa iyo wuxuu u jeedaa afgooyaan isku haysanaa warniyow afgooyaa noo roon jidkeeda waa la sameeyey liisha waaye aan tagno ma tegayna kanaan aadaynaa intaasaan isku haysanaa ilaa aan ku heshiino inaan ama balcad aadayno ama afgooyo aan aadayno gaarigaas ma la dhaqaajinay kula taade mise waa ku heshiinaynaa waa adagta mase doodu darawalkay joogtaa darawalka ka bedel anaa wadaa iyo anaa wadaa bay joogtaa ma joogto anaa wadaa iyo anaa wadaa waxay imaanaysaa markaan ku heshiino aan balcad aadno iyo aan afgooyo aadno marka masiirkaa la ysku haystaa ma ogiye waxaan kale way iska fudud yihiin see u fakiraysaa marka labada dhinac waa sheegtay waxa la isku haysto masiirka tahay dowladdu xalkay rabto muxuu yahay meesha u rabto wadanka inuu noqdo ugu dambeyn mas-uuliyadda ayaga saaran tahay oo hadda iyaga weli ushii midida dabkeeda hayee waxay masiirkay rabaan Soomaaliya inay gaarsiiyaan muxuu yahay dowladdu waxay rabto maba qariyaanba waa sheegaan taageerayaashoodu in social media ku soo qoraan waxaan xasuustaa 4 sano dowlad hadasho oo shir jaraa'id qabato ama ummad la hadasho madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ha noqdee lama hayo taas waa mid dowladda waa muuqataa horta systemkan federaalka ma rabaan totally ma rabaan wayna sheegaan waxaan xasuustaa markii ugu horreysay oo aan xafiiska ra'iisul wasaaraha aan imaado yaa markaan soo galnaya qolo oo gaalaha kulli jirta xoogaa waa sugeyn marka wifi-ga wuxuu soo qabanaa moogtahay dadka oo deegaanka ka dhow ninaa wifi-giisa wuxuu ku qoran yahay federaal diid oo xafiis ibraahim nasarka waaye waxaa ugu qoran federaal diid mobilkayga soo qabtay waaye ma rabaan waa ka khudbeeyeen supporterskooda waa sheegeen wasiiradooda waa sheegeen wasaaradahoodu weli sidii u shaqeeyaan wasaaradaha oo federaalka magac le laga yahay moogi wasaaradaha beeraha xoolaha caafimaadka kulli sidii unitrigii u shaqeeyaan therefore
waa muuqataa dowladdu systemkan federaalka inaysan rabin dowlad xoog badan waa jecel yihiin Soomaalidu nationalistiyaal waay laakiin dadka waxa la yiraahdaa ma caqligaad ku fikiraysaa mase qalbiga dad badan qalbigoodu wuxuu rabaa dowlad dhexe oo quwad leh oo xoogan oo centraala oo madaxweynuhu u taliyo qalbigay ka rabaan laakiin maskaxdu waxay u sheegaysaa war amay nooga dartaa amaan meeshii ku noqonnaa maxaa tii hore naga raacay bacda tacab washidda hal intaan joognaa walaalow iyo walaalayaan inta ku nimid يعني ماشي سوماليدو كدهدو calool waxay ku jirto kuma daawoodo hadaan aniga hadda aan inta xogaa lay galo asun aan cabo hospital lay cararo oo laga soo matajiyo oo falaab laygu suro oo lay nadiifiyo oo antidood laygu turo oo yaa Allah nafta laygu soo celiyo oo lay keeno oo lay soo fadhiisiyo oo dhidid waaweyn iga soo baxo oo bakoorad qaaton bal istaag aan inaan dhacdhacoon mataqaan xoog ii soo noqdo شيء ugu horeeyan doonta haduu suntii noqdo ka war isla ayidi oo ira suntii siyan cadii ti waxa ka dhigtay marka inaad bar kale nidaamkii kacaanka iyo dictatoriyadii aan dhahno waa xiisan u qabnaa daw noo yahay dawlad xoog badan oo ciidan leh oo xuduudaheeda ilaashata oo wadanka xukunta oo jidadku isku socdaan oo baydhabo laga soo casheeyo oo annaga ka jecel madaxweynaha annaga ka jecel ra'iisul wasaaraha annaga ka jecel baarlamaanka laakiin dadkeeda ma hayno laakiin lama joogo dadkeeda lama hayo lama joogo soo maaha marka dooda maanta meesha taallaaho taas waayo ma ogiye doorasho iyo doorasho la'aan arrintu ma joogto waana ta aniga igu beeraysa walwal inaysan arrintu dhaweyn si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doono barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid